وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku soo dhex jirnay xawdaradii ciwaankeedu uu ahaa alfutuur madaahiruhu asbaabuhu wa cilaajuhu waxaan soo qaadanay muxaadarada qeybteedii kuwaad ku soo qaadanay madaahirta iyo muuqaalada uu leeyahay iyo ficlan yani aqsaamtiisu iyadana ku dhex jirtay iyo asbaabtii qeyb ka mid ah asbaabtii qeybteedii labaad iyo marka waxaa noo laabnayd cilaajkii marka waxaan isku dayay inaan maratay hal muxaadara kusoo ururiyo laakiin waa ka badatay sidaa daraaddeed waxaa ila qumaanaatay maratay inaan muxaadaro saddexaad aan cilaajka udabdhigo inaan u dibdhigo asbaabtana aan insha allahu tacaala muxaadaradan ku gabagabeeyay waxaa markaa sababkii ugu dambeeyey u ahaa ee muxaadaradeena u dambeeyey ee futuurka keena cajiska iyo daalka cibaadaadka ilaahay laga daalo ama cilmiga iyo dalabkiisa laga daalo ama dacwada iyo xilka xambaaristiisa laga daalo daalka waxaa keenaan nidhi arrimo fara badan waxaana ugu dambeeyey arrimihii aan ka soo hadalnay inuu ruuxu ku dhex nool yahay jawi faasid ah mujtamacaad faasid ah inuu ku dhex nool yahay ama uu la saaxiibo dad iraadaadkooda iyo casimadoodu ay daciifo tahay oon lahayn macnaha waxa weeye go-aan adag aan lahayn ama waxa weeyaan aan lahayn sabir ad badan aan lahayn waxyaalaha ka qeyb qaadanaya ka mid tahay ruuxii inuu daal ku dhaco innagoo marka kusii jirnaa waxaa ka mid ah waxyaalaha futuurka ama daalka keena macaasida iyo munkaraadka iyo ruuxu inuu xaaraam cuno macaasida oo lagu dhaco iyo dunuubta oo la badsado munkaraadka oo ruuxu uu ku dhaco iyo xaaraamta oo uu cuno iyada lafteedu waxay ka mid tahay munkaraadkii unbay ka mid tahay sida ay ku tahayna waxa weeye cajiska iyo daalka u keenaysa ruuxii inuu culays uu dareemo dunuubta waxay u keenaysaa yacni waxa weeyaan iyada dhan baa culays ah adduunyadana waa culays macnawi ah aakharena waxa weeyaan waa culays xisi ah wey saa daraaddeed meelo fara badan buu ilaahi subxaana watacaala ku tilmaamay dunuubta inay culays tahay walayaxmilunna afqaalahum wa afqaalan maca afqaalihim ilahi subxana watacala waa ka odhanay ujeeda kuwii gaalada ahaa ee u ballan qaaday dadka markay doonayeen inay xumaanta ku ridaan ku yidhi yacni annagaa xumaantiina idinka qaadayno dembigiina qaadayna gaalaya mabda annaga nagu waafaqa oo xumaanta nala gala kuwaas ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku yidhi waxay xambaari doonaan culaysyaalo culayskooda iyo culaysyaalo kale ayay culayskooda ku darsan doonaan bu ilahi subxana watacala macnaheedu waxa weeye dunuubtay iyagu la yimaadeenna waa loo xambaarin doonaa culayskeeda kuwo ay u sabab noqdeenna dembigay la yimaadeen baa loo xambaarin doonaa rabbi subxaana watacaala marka dunuubtii muxuu ka cabiray afqaal waa culaysyo wey waa waxyaalo culaysyaa ruuxibay marka waxay ka culaysinayaan oy macnaha daal ay ku ridayaan oo cajisay kaga ridayaan inuu xagga ilaahi subxaana watacaala uu socdo maala saas daraaddeed ilahi subxana watacala aayad kale wuxuu ku leeyahay wahum yaxmiluuna awsaarahum calaa duhuurihim maalinta qiyaamaday imaan doonaan ayagoo culaysyaashoodii iyo dunuubtoodii dhabarka ku xambaarsan ayagoo dhabarka ku xambaarsan ay imaan doonaan bu ilahi ohanaya subxana watacala suuratu alam nashrax waa ka ilahi odhanaya alam nashrax laka sadraka marka rasuulkiisa ula hadlaya sal alay wasalam wawadacnaa canka wisraka aladii anqada dahraka ujeeda yacni wisrigii iyo dembigii baan kaa dejinnay dhabarkaaga cusleeyey buu ilahi odhanaya subxana watacala yacni naqiidka waxaa la yidhaahdaa markii uu gaadiidku raran yahay ama rati ama wuxuu doonay ha noqde aada u raran yahay oo uu socdo shanqadha ka baxda jiiq 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 macnaa waxa weeye ayaa la yidhaahdaa yacni naqiidka la yidhaahdaa marka waxa weeye dunuubtiia waxay kuu cuslaysay si aad ah miyaanan kaa fududaynin oo aanan kaa qaadin bu ilaahi subxana watacala ku odhanaya rasuulkiisa sal alay wasalam markuu macnaa waxa weye ku manna sheeganay dunuubtu marka waa culays bay keentaa dhanka kale ee culayska ay ka keento waxa weeye iyadana oo ruuxii ay ku bixinayso inuu ka cuslaado ilaahi subxaana watacaala wanaaggii iyo khayraadkii uu rabay waxa iyadana ay qalbigii aan ku soo tilmaanay inuu yahay quwada daafica waa quwada ruuxa dhaqaajinaysa motoorkii wey
qalbigii ayaa waxay saaraysaa madow saaraysaa dunuubta sida rasuulka sugnaatay sal alay wasalam ruuxu markuu dembi ku dhaco qalbigiisu waa madoobaanaya nugtaa ku dhacaysa madow nugto kalea ku dhacaysa nugto kalea ku dhacaysa markasta uu dambaabo ilaa uu kulligii madow soo wada baxo halkaa hadduu gaadhana waxa weeye nuurkii iyo awooddii iyo daaqadii uu lahaa qalbigu ee ruuxa ku dabcin lahaa ayaa baktiyeysa nuurkaasina muxuu yahay waa iimaankii wey saas daraaddeed bay salafka iyo culamaau ahlusunna waljamaca waxay isku waafaqsan yihiin ilaa man shada min alfiraq waxay isku waafaqsan yihiin iimaanku inuu ku ziyaado daacaadka kuna nusqaamo macaasida naqsiga iimaanka soo gaadhaana wuxuu ku imaanayaa oo ta'fiirinaya waaqaca ruuxa laga dareemaya waaqaca ruuxa iyo noloshiisa iyo cibaadadiisa iyo tacalumkiisa laga dareemaya ujeeda naqsiga ruuxa kaga dhaca xagga iimaanka halkaana waxa weye waa kala dagaalamaysaa sidaa daraaddeed ruuxu hadduu dunuub ku dhaco dunuubta badsadaay hadduu cilmi doonayo oo taalibulcilmi uu yahay cilmigii waa ku adkaanaya maujeeda waktigiisii o dhan cajs iyo yacni kicid la-aan iyo yacni waxaasuu dareemaya maujeeda sidaa daraaddeed ayaa imaamu shaafici radia allahu canh yaa wuxuu leeyahay shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdin faarshadanii ilaa tarki almacaasi waأkhbaranii biana alcilma nuurun wa nuur اllahi laa yuhdaa licaasin wakiic oo sheekhiisii ah wakiic ibn اljaraax ayaa waxaan uga sheegtay buuhi oon uga dacwooday xifdi la-aan ujeeda waxqabashadaydii oo liidata cilmiga ma qabanayo markaasaa wuxuu yidhi buuhi oo igu hanuuniyey macaasidan aan ka taga buui wuxuuna ii sheegay buu yihi macaasidu inay tahay mugdi cilmiguna waa nuur meelna ma wada galaan ujeeda mugdi iyo nuur meel isuguma yimaadaan waa mutadaadaan wey waa laba isulid a wey labada isulidka ana meel isuguma yimaadaan biyo macnaha dab meel isuguma yimaadaan allaahuma meelo ilaahi subxaana watacaala uu isagu dhigay mooyaane meelaha qaarkood waa laga yaaba inay isugu yimaadaan sida ilaahi subxaana watacaala geedii yacni dabka laga dhashanayo oo kaleeto uu ku tilmaamay in ay biyo iyo yacni waxa weeyaan maadda qoyan iyo maaddo dab aba ay ka kooban tahay maaragta ujeeda suurat lwaaqica ilaahi subxaana watacaala waa ku sheegay maaragta marka sidaysan labadaas isugu imaanaynin ayay waxaan isugu imaanaynin cilmigii iyo nuurkiisii iyo macaasidii dulmadooda iyo mugdiga ka dhalanaya isuma imaanayaan culaysku halkaasuu marka ka imaanaya mar haddii macnaha waxa weye meeshii markaskii maamulka iyo xaruntii macnaha waxa weye kicinaysa ruuxa jidhkiisa dhaqaajinaysay culayskaasi hadduu ku yimaado xaggee kaloo ka dhaqaaqi karaa marka ilan matoor kale kuma rakibna hadduu mid isbeela haysan lahaa kaasuu shidan lahaa laakiin ma jiro halkaa mid buu ilaahi subxaana watacala ugu talagalay kii hadduu marka tacaqul ku dhaco oo macnaha waxa weeyaan uu daxalaysto dunuubta daraaddeed uu la daxalaysto waxaa ku imaanaysa ruuxii jismigiisii oo dhan inaad marka ka dareento cajis iyo futuur fara badan daal fara badan inaad marka ka dareento maarka sidaas weeyaan waxyaalaha keena marka waxyaalaha ugu muhiimsan buu ka mid yahay sidaa daraaddeed ibnulqayim calayhi araxma kitaabkiisa aljawaab alkaafi waxa uu markuu tirinayo macaasida cuquubaadka ka dhasha iyo nataa'ijta ay keenaan wuxuu leeyahay wa min cuquubaatiha ay ilmacaasi waxaa ka mid a dunuubta cuquubaadkeeda annaha tudcifu sayra alqalbi ila allahi wadaari alaakhira aw tuciiquhu aw tuuqifuhu aw tactifuhu can isayri falaa tadacuhu yakطuu ila allahi khaطwatan saasuu odhanaya yacni dunuubtii waxaa ka mid a waxyaalaha ka dhashay ka ratima in ay tabar darayso oy dacfi ku keento socdaalka qalbigu uu socdo xagga ilaahi subxaana wa tacala inay dacfi iyo tabardarro ku keento iyo daartii aakharo imaa inay intay jidhkiiba ishordhigto macaasidii ay jidhkiiba ka leexiso ruuxii waa mid wa imaa inaysan ka leexinina laakiin waxa weeye derbigii gebiga ay ku leexiso oo jidkii kale barhkiisii uu hayay ay ka leexiso wa imaa inay istaajiso ay u diidaba inuu socdo intaa kama dhaxaysu leey ujeeda tilaabo inuu qaado marka uma ogola dunuubtii ma nataa'ijtii ka dhalataa waxaysan u ogoleyn qalbigii inuu tilaabo qaado oo awooddii uu ku socday inuu ku socdo waxaan kadaata layska sahlanayo ee la moodayo keliyata uun shay ka dhacay yacni xubnaha uun ka dhacay ta'fiirkiisu wuxuu dib ugu soo noqonayaa ruuxa iyo noloshiisa oo dhan buu dib ugu soo noqonaya saas daraaddeed waxaad dareemaysaa ruuxa ilaahi subxaana wa tacaala iimaanka iyo camalka wanaagsan uu ku manaystay kalana saari kara dunuubta macaasida iyo wanaagga kala saari kara
mawjeeda oo dareemi kara iimaankiisu maraaxisha uu kor u kaco iyo maraaxisha uu hoos u dhaco dareemi kara wuxuu dareemi karaa waxaad garan kartaa haddaad mujarid tahay dembi markaad ku dhacdo maalmaha qalbigaagu ingegnaanaya maalmo dhan yacni waxa weeyaan qur-aankii haddaad akris tiraado kuma dhadhamayo safkii hore waxunbaa maaragtay kaa celinaya masaajidkii inaad timaado mawjeeda yacni waxa weeye wanaaggii aad istaagii habeenkii salaatuleilka aad u istaagaysay yani waxaad arkaysa adoo sariirta isku sii nabaya kullu daalika waxa weeyaan waa aahaartii ka dhalatay macaasidaa ka dhalatay wey waana mujarab ruuxii macnaa waxa weye dareemaya ayaa garanaya maarata sidaas weyaan bal waxaa laga yaabaa ruuxa dunuubtu inay ku keento intuu iska tasaahulo o iska fududaysto marka dambe inay inxiraafba ku keento inay macnaha waxa weye haadaan ka tuurto oo macnaha waxa weye caajis ku dhaca meehe ayba ka tuurto maaragtay meel fog ay geyso ujeeda jidkii dhannaaba inay garamariso si u tasaahulayo oo maalinba maalin ka dambaysa leanna waxaa la yidhahdaa yacni macaasidu midba midda kale waxay u tahay boosto u tahay markaad maanta macasiyo ku dhacdo mid kale kuu jiidi markaad taa ku dhacdana mid kale kuu jiidi midba midbay boosto usii tahay ilaa laga yidhaahdo almacaasi bariidu lkufri macaasidu waxay boosto u tahay oy kuu qaadaysaa oy kuu wadaysaa gaalnimo marka ugu dambaysa usii socoto yani waxa weye khadka cagaaran baad marka dhanka shika maraysa maarata khatar wey marka khatar bay aada u tahay sidaas weeyaan inxiraafkaasay marka ku gaadhsiinaysaa ruuxu marka waxaa loo baahan yahay inuu aada isu ilaaliyo oo xaalaadkiisa uu la socdo goorta iimaankiisa uu daciifay dembiguu galay iyo sida macnaha wax weye uu ku yimid inay macaasidu ay iimaanka la dagaalamayso o qalbiga la dagaalamaysana rasuulka cadeyey sal alla alay wasalam xadiidkii bukhaari laa yazni الzani xiina yazni wahuwa mu'min walaa yasriqu asaariqu xiina yasriqu wahuwa mu'min ujeeda markuu dunuubta ku dhacayo iimaankii waa laga siibay macnaheeda waxaa loola jeedaa iimaankii oo dhan baa ka baxay maaha laakiin iimaankiisii baa naqsi ku dhacay waa daciifay wa ilaa iimaankiisii hadduu sidiisii u xoog badan yahay uma suurta gasheen marna inuu macaasida ku dhaco waxay marka ku imaan kartaa inaad wax kasta oo ku shaki geliya ood u malayso inay macsiyo tahay in kaleeto inaad iskaga durugto waxay kaloo ku imaan sida rasuulku yihi sal ly dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuk waxaad shaki kaa gala iskaga tag ujeeda waxaad garanaysaan xadiidkii nucmaan ibnu bashiir ee dheeraa rasuulku sal ly waslam uu yihi alxalaalu bayin waalxaraamu bayin wa baynahuma umuuru mushtabihaat markuu soo waday nebigu sal alay wasalam oo xaaraamtiiyo xalaashii mushtabihaat ka soo warramay aakhirkiisa muxuu ku khatimay alaa wa ina fi ljasadi mudqa إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وكذا يعني وحاسي لسو شيغي مشتبهات كهان نقدين حرام طلعنا يهان نقدين معاصيداس كل جود waxay kamid yihiin waxyaalaha xarunta qalbiga laga maamulo jirka dacfiga ku keenaysa dabir darrada kamid tahay halkaas haday fasaadana waxay la mid tahay macnaha insaankii waa fasaaday macaasidu marka sidaas uga qayb qaadataa ruuxu inuu macnaha daciifo oo tabar dareeyo saa daraaddeed waxaad arkaysaa dadka ducaadda ah ee runtii dadaalkoodu aada iyo aada u cajo badan yahay ninba ninkuu ka tabar yar yahay oo adduunyada uu kaga yar yahay oo ka liito xagga marka la yidhahdo dhismaha jidhka marka la yidhahdo yuu ka dadaal badan yahay saaxada haddaad saa u fiiriso yacni ragga dadaalka badan waxaa kuu soo baxaysa marka ugu horreysaba rag dhuuban oo naf ah inay yihiin ujeeda inay naf yihiin xagga jidhkooda haddii la fiiriyo jidh weyn kuma arkaysa laakiin waxa weeye waxaa nool ruuxdaadaa nool ruuxdooda iyo iimaaniyaadkooda ayaa waxay joogaan mustawa aada u sarreeya maarata sakaairta iyadana waxa weye yaraysigeeda iyadana waxa wey laiska jiro qeyb weyn ba iyaduna ka qaadataa intaan kaga baxno marka qodobka isaga oo ah dunuubtu inay tahay waxyaalaha qeyb ka qaata inuu macnaha waxa weye qalbigaagu daciifo ama cajis iyo daal inuu kaaga dhaco ilaahi subxaana watacala acmaashiisii wan wanaagsanayd waxaa ka mid a waxyaalaha ama asbaabta ka qeyb qaadata dacfiga ku yimaada ama cajiska ruuxa ku yimaada waxaa ka mid a inuusan hadaf cadba lahayn hadafba uma cadda wax ujeeddo ah ama meel yool ah oo macnaha waxa weye tooganayaba ma laha ujeeda waa iska dameeru dhaan raacday haheeye raac dadka kacdoonkaa iska kacay inbuu iska garab kacay maara ujeeda ama mehe waxa weeye kacdoonkiisa iyo socodkiisa wuxuu ku salaysan yahay xamaasuu ku salaysan yahay ujeeda waa iska ficilooday ficiladiiba marka waxay ku bixisay inuu iska kaco ama mehe waxa weye waa nin macnaha waxa weye radulficli iyo macnaha waxa weye yaan lagaa adkaanin ay ku bixinayso ujeeda rag iska dhiciya rabbi ka cabs meel wada gashay somalia jira haddii rag iska dhici un intay ku gashaay aada macnaha waxa weyaan intaa un daafica kuwada uu yahay laakiin hadaf aadan lahayn
waxay ka mid tahay waxyaalaha ka qayb qaata cajis ka qayb qaata ka mid ujeeddo mali wax hadafoo ku cad ma jiro ruuxu hadduu hadaf leeyahay hadafkiisaasi ma dhow yahay mise waa fog yahay imise tilaabaad usii qaadi doontaa maraaxil kadib inuu hadafkiisa taxqiijiyo ku tashanaya hadduu hadaf leeyahay 10 sano sanad kasta ama tilaabuu qaadayaa ama tilaabo ka yar buu qaadaya si macnaha waxa weeye markaa isu dheeli tiran oo miisaaman buu wuxuu ku gaadhaya hadafkiisii ku gaadhaya laakiin hadduusan hadaf lahayn waxa weeyaan maalinta hore intuu macnaha waxa weye boodboodo oo xamaasatan dhaafa uu ku socdo ayuu marka dambe ay la soo yaraanaysa la soo koobmaysa maarta markaasuu iska kufi markii horeba hadaf muusan lahayn sidaa daraaddeed ba waxaan soo qeexnay inay muhim tahay jiddan ruuxa marka ugu horeysa hadafka uu camalkan u qabanaya inuu qeexo dacwaad gelaysaa limaada salaad baad tukanaysaa limaada ujeeda salaatuleyl baad usagay limaada waad soomaysaa limaada ujeedooyinku maxay tahay maxaa ka dambeeya ujeeda hal ugu ogaada hadday tahay waa gaaban tahay weji iyo shuhro aad ku heshay hadday tahayna waa gaaban tahay kursi aad ku heshay hadday tahayna waa gaaban tahay ujeeda kullu dalika meel fog ma gaadhsiisna laakiin hadduu hadafku yahay oo kuu cad yahay ilaahay subxaanahu watacaala inaad raalli geliso daalkaagu xagee buu ku egyahay waa markaad dhimato adoo mabdi-ii haya oo doonaya inaad taxqiijiso u dadaalaya unbay geeridu kugu imaanaysaa laakiin meel kalood ku daasho ma jirto meel kalood ku daasho ma ay jirto marka ugu horreysay tilaabada aad qaadaysana talagalkaagu halkaasuu noqonaya waabaad ku talagashan tahay waxaad ku talagashan tahay noloshaadoo dhan inaad u hibayso mabdaa isagaas uu taxaquqi lahaa maujeeda ama ha dhowaado ama ha kula fogaado laakiin haddaad ku talagasho ka waran in aad waxan taxqiijiso yacni waxa weye ahdaaftaas farciga ee yaryarkaa ee dunyawiga haddaad ku talagasho waxa weeye meel fog ma aad gaadhaysid waa daruuri marka aad bay daruuri tahay inuu hadafku ruuxa u cad yahay maxaa yeelay qeybi waxay ka qaadanaysaa tartiibka camalka uu u gelayo rasuulkuna sal alla alay wasalam xadiid saxiixuu ku yidhi yacni ilaahi subxaana watacaala acmaasha wuxuu ugu jecel yahay midka uu saaxibkiisu daa'imo haba yaraade ujeeda camalka aad daa'imtuu ilaahay jecel yahay walow ha yaraado tilaabaha ka yar haddaad qaado oo taa daa'imto maujeeda maalin kasta haddaad hal aayad aad macnaha waxa weye aada maqrax aada akridaay ayaa waxay ka fiican tahay inaad bil intaad xamaasooto ood qur-aanka aad 3 goor dhamayso haddana waxa way dhowr bilood inaad mogaato waxaa ka fiican maalin kasta hal maqra inaysa ku dhaafto halkaa maqra inaad ku taagsato maujeeda waa camal daa'ima wey inaad macnaha waxa weye habeenada qaarkoodna aad tukato 12 ragcadood habeenada qaarkoodna aad macnaha waxa weyaan aadan tukaninba waxaa ka fiican 3 ragcadood daa'imtaa ka fiican haba yaraada camal ujeeda inaad intaad wax hululuub ka siiso yacni waxa weeye hal mar aada bulsho kiciso ood macnaha waxa weye isku dayda inaad mabda-ay ka dhaadhiciso oo hal mar macnaha waxa weye aada gaadho ujeedadaad doonaysay meeshaad hiranaysay waxaa ka fiican camal macnaha waxa weeye adag oo macnaha waxa weeyaan aan khalal dhexdiisa uusan soo galaynin oo daa'im a inaad ku socotaa ka fiican ujeeda reer galbeedkaad moodaa inay barnaamijka aada ugu dheereeyaan qaacida a waxay leeyihin yacni waxa weeyaan batii'un walaakinahu akiidu lmafcuul bay dhahaan batii walaakinahu akiidu lmafcuul si gaaban buu u soconayaa barnaamijkooda laakiin nataa'ijtiisa waa lagu kalsoon yahay nataa'ijta uu keeni doonaayo waa shay macnaha waxa weye lagu kalsoon yahay 50 sano 100 sano kadib baa waxay u takhdiidinayaan in barnaamijka noocaasa u fulo ujeeda sabir bay marka u leeyihiin tiibay marka waxay u qaadayaan sanadkan hal tilaabay qaadayaan sanadku xitana tilaabay u qaadeen barnaamijkooda saasuu ku soconay ujeeda nataa'ijtiisa marka iyagu wax alla wixii sabab ahaa ee shaygaasi loo sameeyey way ula imaanayaan laakiin qadar ilaahi subxaana wa tacaala inuu ku yimaado ku hirgeli waaya laga yaaba iyagu laakiin wax alla wixii asbaab o dhan waa qaadanaya baynamaa shucuubta islaamiga ah iyo shabaabka iyo saxwada lagu ibtileeya waxa la yidhaahdo xamaas dhaga xidhan xamaas iyo isku ruduudu ficli iyo isticjaal aan meel la gaadhsiisnayn oo dhowr beri in wax lagu noqda ninka ardayga wuxuu ku tashanaya 10 sano oo soo socda 5 iyo 10 sano oo soo socda inuu cilmi ku barto ku tashanaya waxaa loo baahaya marka 5 iyo 10 sano markuu xadito waa inuu sanad kasta wax qorshaysan uu leeyahay waa inuu ku talagalo sanadka ugu horeysa alalahay waxa kaloo dhan intaad gacan bidixaysa naxwada dhinac iska dhig maujeeda waa ku tuugsada dhinac iska dhig sanadkii ku xigay barnaamij labaad buu leeyahay
sanad ku xiga barnaamij labaad buu leeyahy 15 sano haddii ilaahay daayo subxaana wa tacaala barnaamijkii uu ku talagalay waa mutakaamil hadduu laakiin iska hamaji yahay ka war halkan ku dhac sida baalaleydi halkan ka duulo ku dhac halkan ku dhac halkan ku dhac ujeeda 15 sana mari isla markaasi wax xasiila amahay sifrul yadayn wax alla wuxuu gacanta ku hayay ma jiro ujeeda hadafku hadduu ku xadidmo waxa ka dhalanaysa niri tartiibaadkii iyo khatawaadkii aad qaadi lahayd inaad xadidataa ka dhalanaysa min huna cajziga iyo futuurka iyo daalku waa yaraanaya markaas waxa iyadana la mid ah oo iyadana daalka keento arrinta iyada soo guda galaysa wasiilada loo qaadayo ama jidka loo qaadayo hadafka in lagu taxqiijiyo haddii aadan ku kalsoonayn amaba aaminsanidba ujeeda waa adagtahay si aad ugu adeegto hadafka markaas sidaad u qaado wasiilada iyadaa u qaadato ama jidkaa u qaadayo waa adag tahay maxaa yeele ibnu aadamku shayga hadduusan kalsooni buuxda ku haysanin oo uusan ku kalsoonayn bikulli iqa hadduusan ku qabin waxa weyaan waa ka daciifaya maalan haddaan tusaale u samayn saaxada dacwada oo kaleeto maalan itijaahaad baa iska jira qaar baa maalan waxay ku qanacsan yihiin maanta dhibka muslimiinta haystaay in lagaga qaadi karo in cilmi loo noqdo ujeeda in cilmiga tarkiiska la saaro qadaayaadka kale o dhanna la ihmaaliyo taqriiban macnaha waxa weyaan la gacan bidixeeyo qaar waxay ku aaminsan yihiin in tarbiyada ruuxiga ah xaggeeda dadka laga dhiso cibaadaadkii iyo adkaartii iyo halkaa un dadka laga soo galo laakiin cilmigii iyo waxaan maarata la iska gacan bidixeeyo ujeeda qaar waxaad arkaysaa waxay tarkiis ka saarayaan siyaasadda iyo qadaayaadkeeday aktar min allaazim tarkiis ka saarayaan ujeeda yacni waxa weeyaan mudaaharaad iyo mujtamacaad macnaha waxa weye la hogaamiye iyo dawlad markaba gacan lagu dhiga iyo halkaasa wax laga bilaabay qaarna halkaasi ku kalsoon yihin kullu daalika nin walba wuxuu arkaa qaarna waxay qabaan in yacni ay daruuri tahay manhaj shaamil ah oo intaasoo dhan wada shamlinaya haddana mid kasta qeybta uu ku habboon yahay laga siinayo in macnaha dacwadu ay noqoto ujeeda siyaasaddu qeybta ay u baahan tahay maantana macnaha u qalanta ee macnaha markii diintii iyo usuusheedii loo noqdo maanta duruuftan la joogo qeybteeda waa in la siiyo acdaada iyo taxadiyaadka ka imaanaya muwaajahadooda iyo khudadka ay muslimiinta u qaadayaan daraasaynteeda qeybtay u baahan tahay waa in la siiyo looga badinin cilmigii isaga aasaasee yacni waxa weye qeybtuu u baahan yahay waa in la siiyo ujeeda siyaasadii iyo qadaayaadkeedii qeybtay u baahan tahay waa in la siiyo tarbiyada ruuxiga iyo ruuxii in shaksiyan uu dhismay qayb waxay u baahan tahay waa in la siiyo shumuulka noocaasana qaar baa qaba inkastoo yar tahay aada u yar tahay shumuulkaasoo kale dad kusoo baxday dhinacba qoloba dhinac bay u badantah maujeeda ayib ninka marka shumuulka aaminsani hadduu la shaqaynayo kuwa macnaha waxa weye aaminsan yacni hadafka wasiilada lagu gaari karo inay tahay tarbiya ruuxiya in ruuxda un dadka laga dhiso ma la shaqayn karaa waa adagta maalma hadduu macnaha la yara firiqleeyo marka dambe waa iska daalaya maujeeda nin aaminsan macnaha waxa weeye in ruuxi mooye wax kale aan lagu soo celin karin mid cilmi meeshan u fadhiyo oo musalax akrisanay ujeeda musalax buu ag fadhiya mid kalena usul fiqi buu ag fadhiya agtiisa waxaasoo dhan ictibaaraadka ma laha wuxuu aaminsan yahay dadkii in cibaade iyo ruuxaaniyaadkii iyo halkaa laga galo aaminsan yahay ma u malaynaysaa inuu macnaha waxa weye kugula soconayo isagoona aaminsanayn inaad halkaa kasoo dhisanto oo macnaha cilmi aada soo wato waa fogtahay iyada maujeeda yacni wasiilada haddaadan ku qanacsanayn hadafka lagu gaadhaya lafteeda waxay ka mid tahay waxyaalaha futuurka kugu keenta mashaakilkasta waxaa ka mid a haddii aad ku qanci weydo hadaf ama qaabka wax u socdan haddaad ku qanci weydo dadka intiisa badan waxaa ku dhaca futuur baa ku dhaca daal baa ku dhaca ilaahayna wuxuu gaadhayaa saaxadiiba marka dambe uu ka baxo saa lama rabin laakiin haddaad kan ku qanci weydo hadaf wasiiladani ku qanci weydo ka gadoon waa laga wareegaayo waxaa loo wareegaa tu kalaa loo wareega hadday ku qanci weydana tu kalaa loo wareega ma ujeeda weligaa iyo allaha adigu majaalkaa ka bixi laakiin haddaad mid markaad ka daasho aada macnaha ka baxdaay khatar bay leedahay markaas macnaha waxaan misaal ahaan ugu soo qaatay wasiilada ruuxu lagu gaadhayo hadafka iyo jidka loo qaadayo ayadana waa inuu yahay mid uu ku qanacsan yahay hadafkii markuu uga cadaaday kadib ayib taana waxa weeye waa sabab asbaabtii ka mid a oo ah cadamu wuduuxi alhadaf waxaa ka mid a cadamu alwaaqiciya maxaan ula jeednaa marka la ilaha cadam alwaaqiciya waxaan ula jeednaa yacni isma miisaanna
إمكانياتك هي أود الروح هي وحا بحنا يا اسم ميزان موجودة أما وحو بحنا يا يم وأود دي سوا كبضا انت كبضا بو أودا أما معه أود وصل لهين بو إستصاري ووحو سنقاري كريم بو دوش إسكساري ووحا بطي وحو بحنا إمكانياتك سنوايا راجل فأسا نولجنا عدم الواقعية معناه وحوي التناسب بين الإمكانيات الذاتية وبين مقدار العطاء روحوا بحنيه معناه وحوي وصمينيه أوديس الشخصي وإنه يسوق لي ترنته مثلا عبادة مثلا صمينيه عبادة سوى إنه أود هذا ترنته وأنا إنه أسكبت بدينين دعوة قوانيسة أود هذا وحكا بحثا وإنه استثاري وجد وهذا واحد قاضي كريم هذا الاستثار واحد كمان كرتنا وين هذا كقابل وغير ذلك والله مد يدنا انت إن لم يدنا وين مركز الصور بيلاده عدم الواقعيه ذا سي waxay leedahay bal dhowr suwar ayaan ka bixinayna ama tusaalayaal dhowr aan u sameeynayna مثلا waxa kamid عدم الواقعيه الغلو والتشدد xadgudubka ina diintii xadgudub ku sameeyso ama aad isku adkayso meel ilaahay subhanahu wa ta'ala adeeg badhigin inaad isku adkayso nafta isku keento waxay kamid tahay عدم الواقعيه kamid tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala aad buu reebay wajada مثلا cibaada aadan qaban karin baad isa saartay oo dusha iska saartay mana wadi kartid wajada waxaad ku tala gashay habeenka oo dhan inaad soo jeedo ma wadi kartaa abadan maalmo oo dhan inaad soontaad macnaha waxa weeye aad isku laazimtay ma kari kartid ma wadi kartid wajada waxaad isku laasimisay ehelkaagii iyo adduunyada oo dhan intaad ka dhaxbaxdo inaad dacwo u go'do oo jeeda oodan shaqaysanin mas'uuliyaadkii ehelkii ku saarnaa inaadan macnaha gudanin naftaadii aadan ka kaafinin baryadii oo jeeda adduun waxaan u geeyay tiri dacwaan u geeyay ma awoodi doontaa ma wadi doontaa ma wadi doontaa dhaxdaad ku daali doontaa jidka macnaha dhaxdiisaad fadhiisan doontaa saadaradeed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaad fara badan iyo xadiid fara badan wuxuu nagu amray inaan dhexdhexaysano shay kasta oonaan ku xadgudbin xaddiisa inaanaan dhaafinin yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum ilahi waa ka odhanaya subxana wa tacala ahlulkitaabki yahuud iyo nasaaradii war diintiina ha ku xadgudbina layidhi xabdi ilahi dejiye subxaana wa tacala ha dhaafinina aayad kalena waa ka ku odhanaya warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtigaaa ridwaan illah famaa racawha xaqa ricaayatiha وجدا سوفينما يجوا اسكول لازمين او إلهي سبحانه وتعالى اوسن كل لازمين اني الدنيا دون كان غوان وي تاسا اسكول لازمين لكن إلهي سبحانه وتعالى وحو كل لازمين معه ها اسكول لازمين ما بحماتين او markii hore waxay isugu laazimiyeen gu'itaankan kadaata ay ku go'een sawmacaadka sawmacooyinka iyo meelaha ay ku cibaadeysan jireen macnaha waxa jiri jirtay hadda waa yartaan u maleynaya nasaarada ruhbaantooda ninku intuu meel iska sameel baadiya intuu ka dhisto buul ka dhisto iyo halka ku cibaadeysan jiray la ahad yaati cid u iimaanaysa ma jirto naagna maba guursado maba qaba naag caruurna ma rabo oo jeeda halkaas uu marka ku cibaadeysanay qaabka noocaas ilaahay marka subhanahu wa ta'ala muusa ku qasbin uma jidaynin laakiin iyaga waxa way waxay ku xad gudbeen ilaahay subhanahu wa ta'ala raalinimadiisa raalintiisii ay ku xad gudbeen waa hadaf fiican oo jeeda maxaa dhacay laakiin فما رعوها حق الرعاية أبو الله سبحانه وتعالى ما يسنوا إلى لنين لكن سيد الربي أيها اسكول لازمي لكن سيد الربي هذا ما يسنوا إلى لنين هذا اسكول لازمي لكن وحوي سيد الربي هو إلى لي وعيب الله بين إنه معناه وحوي بدل كي أي هذين معناه وحوي هوينك كورسي جود ووسخ ومرة منه موجودة وعيب الله بين إنه الزنيستان ويوصوس كزنيستان موجودة إنه أقول نتام بالله بين وأن عبادة السنة نبي هذين كوركينا وان ka tagna bay yiraahdeen wax ka weyn bay leeyimaadeen iyagana isku laazimay ilaahay subhanahu wa ta'ala kuma laazimay macnaheedu waxa weeye xad aan ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo xil aan dusha uusan ka saarin ayay dusha iska saareen waana wadi kari waayeen maxay la wax la wadi karo ma saadaradeed nabiga sallallahu alayhi wasallam ummadda markuu ilaahay wuxuu yiri iyaakum wal ghuluwa fi din fa inma ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fi din waxaan idin ka digaa nabiga sallallahu alayhi wasallam inaad diinta ku xadgudubtaan maxay yeelay ummadihii idin ka horeeyay waxa halaagay ku xadgudubkii ay diinta ku sameeyeen xaddi sharcigu dajiyay oo dhaafiyeen ayaa ummadii hore halagay uu rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam oo jeeda
halaka almutanadicuun waa ka odhanaya salawatu llahi wasalaamu calayh kuwii isku adadkeeyey diinta ayaa halaagsamay buu leeyahy salawatu llahi wasalaamu calayh macnaha waxa weye halaaga waxaa loola jeedaa waa wadi kari waaye dhexday ku daaleen marka ma ujeeda waxaa la mid ah xadiidkii bukhaari ina addiina yusrun walan yushaada addiina axadun ilaa halaba diintu waa sahlan tahay ruuxna iskuma taago diinta oo inuu ka xoog bato iskuma dayo ilaa way lagataa iyadaa ka xoog badato rasuulku lehy sal alla alay wasalam see uu diinta isugu taagaya wuxuu isku dayahayaa shay walba oo diintu la timid meesha ugu sarraysa inuu kala yimaado ma awoodi karo ibni aadamka ilaahi subxana wa tacaala imkaaniyaad wuxuu siiyey uusan waxyaalo badan ku qaban karin awooddaada iyo imkaaniyaadkaaga haddaad jaahil ka tahooda garanaynina waxaa kugu imaanaysa inaad takaaliif iyo mas-uuliyaad aadan ka soo bixi karin inaad saarto saasaa kugu imaanaysa masalan waxa weye waa kii aan soo marnay cabdullahi ibn mascuud oo odhanaya laa tugaalibu leyl war habeenka hala laga tabina ma ujeeda habeenka ha isku dayina inaad ka xoog badataan say uga xoog badana macnaha waxa weye habeenkii intaad istaagto fiidkii ha isku dayi inaad waaga ugu berisiiso ma wadi kartid soon inaad habadii iskaga dhigto ood boqol soon aad noqoto ha isku dayin ma ujeeda yani soomaalidu ninkii boqol soon dhaha wax boqol soon leela 100 maalmood oo isku xiga soon jirana mama jiro ma ujeeda saa daraad nabigu sal alla alay wasalam wuxuu yihi yani waxa weeye isku xijin wax la yidhaahdo laa saama man saama alabad buu yihi salawatullahi wasalaamu calayh waxa soonka la yaqaano ugu fara badan inaad maalinna soonto maalinna aad afurto sawmu daawuud sawmu nabiyllaahi daawuud axabu siyaami ila allahi sawmu daawuud waa ka rasulku nabi sal alla alay wasalam sidaas weeyaan marka ha isku adkaynin meel aan ilaahay subxaana wa tacaala adkaynin oo uusan ku saarin hayse saarin hana isku dayin diintii inaad ka adkaato macnaha ka xoog badato wey nabigu salawaatu llahi wasalaamu caleyh caaisha ayuu usoo galay maalin maalmaha ka mid markaasaa wuxuu agteeda ugu yimid islaan markaasuu yidhi tani waa yay tahay bu nabigu sal alay slam waa tuma caaisha markaasaa waxay ku tihi waa hebla waxayna sheegaysaa bay tihi salaadeedii iyo cibaadadeedii bay ii sheegaysaa maarata inay intaas tukato oo intaa ay cibaadaysato oo intaa ilaahay u digrido saasay ii sheegaysaa bay tii nabigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam mah calaykum bima tutiiquun fawallahi laa yamallu allahu xataa tamalluu saasuu rasuulku yihi sal alla alay wasalam yacni ka hadh buu yihi arrintaa iyada haddayso ma ujeeda waxaad laasimtaan ood qabataan waxaad awoodaan oo keliyuu nabigu yihi sal alla alay wasalam maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala ma daalo ilaad idinku ka daashaan macnaha waxa weeye ilaahi subxaana wa tacaala marna ajirka kaala daali maayo inuu kuu qorayo inaad adigu daasho mooyaane marka ha isdaalinin yani waxaa la yidhahdaa almunbitu laa dahran abqaa walaa ardan qataca ninka habeeniya maalin isku bixiyey oo socod isku xiga socda markuu safarta yahay ma ujeeda dhabarna ma baaqi yeelin oo gaadiidkiisii ma nasinin dhulna ma goynin buu rasuulku lehy sal la alay waslam inuu caddidaa malanay ma ujeeda yani waa daalaya ruuxu hadduu socdo oo socodka xidhiidhiyo qasab waxaa inuu daalay meel fog isagoon gaadhin buu meel dhow ku daali doona laakiin ka warran hadduu si tartiiba u socdo maalin gelinkeed buu soconaya markaasuu iska nasanaya qoraxda markay soo gullanto waa nasanaya casarkii marka la gaadho wuxuu ku dhufanayaa bahal yani carraabo oo dheer buu ku dhufanaya ninkaasi meel uusan goyn karin kii hadhkii socday buu goynaya ujeeda waa u xeeladaystay socodkiisii buu u xeeladaystay saasoo kale loo baahan yahay in loogu xeeladaysto ilaahi subxaana wa tacala cibaadadiisa loogu xeeladaysto markay soo muwaajahayso adaygeeda aad aragtana yani waxaa loo baahan yahay inaad koono kale kaga timaado dhinac kale kaga imo saasaa loo baahan yahay laakiin haddaad isku taagto shaki wuxuusan ku jirin inay kaa qaalib noqonayso rasuulku sal alay slam xadiidkaas waa muttafaq wey sidoo kale maalin maalmaha ka midu masaajidka soo galay salawatullahi wasalaamu caleyh markaasaa wuxuu arkay xadhig ku xidhan 2 tiir dhexdood 2 tiir buu udhexeeya markaasuu nabigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam muxuu yahay xadhigga markaasaa waxay yidhahdeen waa xadhig zaynabo ay xidhatay oo markay ka daasho maarata cibaadada yay ku istaagaysaa qabsanaysaa bay dhahay yacni say u fadhido ay u cibaadaysanayso ay u tukanayso ayay daali heer waxay gaadhi marka ay kici weyd markaasay cuskanoo macnaha waxay xadhigga ay qabsanaysaa nabigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam laa xulluu liyusalli axadukum nashaata faida fatara falyarqud buu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh waa xadiid muttafaq wey yacni fura buu yihi xadhiggaa isaga mid idinka mida intuu nashaadka leeyahay ee xiisuhu uu ku jiro ee macnaha nashaadkiisu uu dhisan yahay ha tukada buu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh laakiin markuu daalo daal iska dareemo ha seexda buu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh ma ujeeda muddo markaad yaro huruddo adigoo nashaad le haddana kusoo karaar celi ma ujeeda hal waxaad goynaysaa marka shawd kale aad goynaysaa
haddaad u seexato mar saddexaad soo toostana shawd kalaad goynaysa adoon daalin oon jidhkaagii dhibin oon rafaadku soo gaadhin ma ujeeda yaa waxaad qabsatay camal aada u khayr badan oo fara badan baad qabsatay haddaad se habeenkii isku taagta ka waran waxa weeyaan dhexdaad ku daali waxay ka mid tahay markaa cadamu alwaaqiciya waxaa ka mid ah ruuxu inuu isa saaro wuxuusan awood karin inuu isa saaro wey waxaana ka mid a arrimaha iyaga ma aha cibaadada keliya gooni kuma dacwadana waa noocaas wey dacwaduna waa noocaas haddaad ku tashato inaad bulshada hal mid oo caasiya in laga waayo barnaamijkaaga haddaad saa ku tashato ood habeen iyo maalinba aad ku tala gasho inaad un dacwo u warato oodan nasanin oo xilkii adduunya ku saarna aadan ka soo bixin oo saaca ee xamdala aadan kaga dhigin waxa weeyaan sheeg kuma jiro inaad daalayso sheeg kuma jiro sanawaad markaad garaacdo inuu daal kugu imaanayo ujeeda marka waxa weeye barnaamijka badii'un walaakinahu akiidu lmafcuul waa qaacide aada u qiimo badan wey waxaa ka mid a suwarka ama xaaladaha kutusinaya isu dheelitiraanta ama waaqici la-aanta waxaa ka mid ah masalan in uusan ruuxu isu dheelitirin adduunyadiisa iyo diintiisa masaalixdiisa caamka iyo khaaska ah masaalixda caamka waxaan ujeedaa dacwada iyo dadweynaha bulshada iyo diinta iyo diisa khaaska inuusan isu dheelitirin dhinac u bato waxyaalaha daalka ku keenayay ka mid tahay masalan waxaad arkaysaa shabaabka qaarkood ama dadka qaarkii nashaad fara badan baad ku arkay markaad aragto dacwadii iyo cibaadadii iyo talabulcilmigii aad baad ugu arkay inuu nashaad gu leeyahy laakiin ehelkiisii iyo xaqoodii iyo macnaha waxa weeye aqaaribtii iyo dadkii xaqa ku lahaa waxaad arkaysaa markaad u fiirsato taqsiir fara badan baad ka dareemaysaa gaboodfal fala badan iyo waxaad ka dareemaysaa khalal fala badan inuu kaga jiro ninkaasi maxaa dhacaya cabaar markuu wado waxaa laga maarmaana mar inuu dib usoo jeedsado oo xisaabtamo daruuri wey xamaasadu mudday kuwadii waa kii aan rasuulka xadiidka soo marnay likulli camalin shira walikulli shiratin fatra markaad meeshii ay kugu waday ay ku gaadhsiiso gadaal baad soo jalleeci gadaal markuu soo jalleec muxuu arki reerkiisii oo burburay ujeeda aqaaribtii iyo wixii oo dhan ay kala go-een ujeeda dadkii shaydaan baa halkaas soo geliya markaasu wuxuu saaxiibadiisii dacwada kula jiray ama cibaadada kula jiro o adduunyana dhistay aakharana dhistay markaasuu qalbigiisa la dagaalaya isagii baa isla dagaalamaya murug buu marka gelaya ujeeda waxaa laga yaabaa dafcada halkaa uu ka soo qaado duulitaanka halkaa uu ka soo duulo waxaa laga yaabaa inuu macnaha waxa wey meel xun ku dhaco oo uu ka baxo majaalkii dhannaaba inuu ka baxaa laga yaaba sabab keenay muxuu ahaa bidaayaadkaa xumaa hadduu bidaayaadku xun yahayna kullu maa buniya calaa faasidin fahuwa faasid shay kasta oo shay faasida lagu dhisaayo waa faasid oo isla fasaadaya ujeeda marka in dacwada iyo masaalixda caamka iyo diinta gacanta midig lagu qabto waktiga intiisa badan la siiyana waa loo baahan yahay oy waktigaaga intiisa badan iyadu qaadato tafkiirkeeda iyo ushaqaynteeda laakiin isla markaa waktigaaga qayb ka mida waa inay ku jirto ood adduunyadaadii iyo ehelkaagii iyo xilkii ku saarnaa aada gudanayso maujeeda saaca wa saaca haddii aan soo marnay yani waxa wey qaacidada iyadaa inaad ka indilaaqtaa loo baahan yahay haddii kaleeto daal inuu kugu imanayahay waa hurtila wey shaki kuma jiro waxaa ka mid a suwarkaa iyaga ah inay macnaha kooxda dacwada wada ama ruuxa cibaadaysanaya inuu xadito ahdaaf aan waaqici ahayn ahdaaf aan waktigan kadaata la joogo aan munaasab ahayn markii waktiga loo fiiriyo ahdaaftu si ahaanteeda waa ahdaaf mashruuca aadna u sarraysa ma ujeeda laakiin waxa weeye waaqica maanta markii loo fiiriyaay ahdaaf aan dhici karin ma ujeeda waktigay dhici lahaydna uusan ahayn ma ujeeda jawigay ku dhici lahaydna uusan qaa'im ahayn ahdaaf noocaas oo xadidanaya masalan haddaan tusaale ka bixino yani sidii aan soo macnaa tusaalehaan soo marnay oo kaleeto yani ruuxu maca hada hiqal culayskan maanta jira iyadoo uu jiro oo acdaa-ulislaam maanta aysan ogolayn hal taako oo adduunka ka mida inay ka ogolaadaan inuu islaamku maamulo hal taako oo isku dayahayaan intaasoo sano ka hor waxa markii bidaayaadkiisa uu u muuqdo iyo bawaadirtiisii markuu kasoo muuqday waxay isku dayaan inay dhex galaan oo ay furfuraan oo boolbool u kala furfuraan dhexdiisa inay ka shaqeeyaan hadday ka shaqeyn waayaan awood inay adeegsadaan ma ujeeda si walba waxay isugu dayahayaan in macnaha waxa weeye uusan dhicin inuu soo noqdo meel yar oo islaam maamulo culayskaas isagoo jiro isla markaasi culays daakhiliya uu ku haysto oo mujtamacaadkii aad iyaga dantoodii laftoodii dantii aysan kula fahamsanayn bal dagaalka ugu weyn iyaga uu kaaga socdo ujeeda
وما بسلا مجتمعات إسلامية أمانتا إن دين الإسلام كواحد ويحكم كذا يقاتل وما بسلا أيها لفتوضا قالوا رمانيا مقعمها أن للكوكوين موجودة مقعمها أن للكوكوين بقالوا رمانيا ومسلمين لكن وحوي جهلية هاي استدرادات بين أقرنين يعني ما أنت أقول بسلام أيضا أنت سجرتو أيضا إسلامك قاعدتي هي صحولي لفتدي أين أبسلين إن معناه وحوي مسؤوليات وين أي قبطه يا هذا نوع عملك يساوي وكلية هاي لابد وحوي صدح سنة سوسعد إلى الدولة تحقيق جول موجود وهدف غير واقعي أوي هدف غير واقعي أوي وهدف سامي أو آد سرية مشروعنا لكن وحوي الظروف تكوكو لك المكان فيرتته غير واقعي هداد قاري وإذا ودالي شكيكو مجر هنا داليس موجود وحلو بها مركا وحن إسكا إيمانه لكن ترتيبات كاجي أوراق ذي كو ترتيب سنة يساك خلدن استعجال يسنكو قد حنن إن آد معناه وحوي هدف أن توجين هذا إناد كنسته آد ما نقول رين لهين إن الله سبحانه وتعالى ونوسد الدجيو إن معناه وحوي أن أرجنو دين الإسلام كون لكم ما ملايدة موجود لكن دراسة رسمي أمريكا زميسو شيتكو إنه دير يا إن شاء الله تعالى وينو إيمان دوتا موضوعنا عايز أهداف غير واقعية مركا هدي أعطيقته دب كذا أي لهذا هاي سيدا سويا سيدا درادت دحدحات وحلي لهذا ما بليهم بقى إما وإما حرب نوعس إما إن الهدف كان قاري أن مع المكو قبته وإما إن نسكبت تقول نسكبت الصلوات كما دعيس شاعرتي وكلاسي يري معنى واحد يري ونحن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر وكذا وحو يري ضدان النهيب دحدحات وحلي لهذا أكثر هذا ما يلا ما نقانو أما وحوي اللابتان هنانينا ووحوي الصفق وران قلنا ومدان هقامينينا أما هديك لتقبري من كقلينا لكن ما يلد حينا نكو صبرنا واحد معقولة معه معنى وحوي وجاهلية ديوي معنى هذا وحوي إني أنك أدون كودا النهوسي ماتو وهدف هي إنا نقولك وستيسي قبري الدورة كما تحيسو لكن تحدى إنا نهوص فريسا أرنتا جارنا يلينا معه ساسو كلاد مدائن معنى وحوي واقع نوعاسو كلا إنو سحوة دحدى ذاك الجو إما إنا نسكب فريستا وإما هدف كينا المعلمكو قاعدة وحصى عليها معه إلهينا سبحانه وتعالى سيدنا نومان دونتا سنة سكونك أي خلاف سنتي أرنتاسي وحكم إذا أرمها يقول ذلك كان الصور كانت عدنا من الواقعين وحكم إذا إن أي كاحو مادام باللوغ وكاحو ماذا خاصة مركز طلب العلم قاعد إلا واحد كان الله إنه معها يعني مجال الدعوة بس معه مجال علمنا بس معه عبادنا بس معه كل دي تورا مقابل بس لو واحد عايزة نبقى علمي إنه برتوسو ديار قروبية ساسو مركا وحو فيرنا يا طلبة العلم يا رجل اسكو غير كايان بو فيرنا مركا ساو اركا يا ايغو شوط اد u fogooyay aad u tagay markaas wuxuu ka bilaabaya inuu markaasi maktabaadka intuu galo mudawalaadka iyo ummahatul kutub halka inuu taalaacdo bilaabaya mawjada inuu macna wax weey halka ka bilaabo ayuu bilaabaya ma majmuuc an-nawawi iyo muqniga iyo halkaasi macna rawdaha iyo بخاري إيو هل كاسو معناه كده حلومية بدأسو كده فكني عبار مركو وضو السندات وضو أو مدة وضو مركو وحركة يا إسقون وحبهين حصيلة أن لهين وحمراء أن صو صارم وش ده بدايات كحم هذه بدايات كي أياك كحم هذه وحلقة يا بايونس المختصرات هي كتبتي هو صوص وحبك جرين وحلقة يا با أساسيات كي اللغة إنه وحبك جرين waxaa laga yaabaa xataa abjadiyaadkii ay cilmigu ku dhismayeen saxba ka garanay markaasuu wuxuu ka xagee ka bilaabay gurigiibu wuxuu ka fantay madaxa ka soo fantay baynama jarjarada inuu hoos ka bilaabo la rabay oo jeed markuu wado oo saas uu arka marka natiijo la'aantiis oo ficil natiijo la'aan bay maaris natiijo la'aan waa xatmi way ardayga saas oo kale wuxuu bilaabay inuu natiijo la'aan ku dhacayo marka dambe intuu daalo cilmiga iskaga dhaxbay doono kuma jiro allahumma intuu dhaxda si socdo intuu iskarta khaladkiisa inuu sagaajiyo mooyaan وجد بدايات كوائنه كبلاو هذيك اللي تمركو ميلسي سعده وقت بدلنا وكبحي يعني فكرة فر بدلنا وبحي دلال بدلنا وبحي ومرنا وتابل لا أي هاي مركز وكله توحى وياه يصاحبك به أو دالي وجد سيدا دراسة طلبة العلم قال إنه ورد طلبة العلم بيننا هاي قدر كأنه إنا قرمنا عبده في عنده هذا قدر كأنه قروي
ومصائب تأقوين مصائب تأقوين بكمتها هذا جاهل تهي خلي تعرف بأنك جاهل اسقرأ إلى جاهل هذا نحوها مستواه الرؤية هي اسقرأ مستواه الرؤية مركز سنة وحوية علمك اللائقة قوة كل مستواها كب اللو هذه أجرومي هي الصفينة كل مستوية بخاري واحد أوقع موجودة هل كان قصوى باللو أساسيات كهدو كاخل دم وحوية وحيالها كان أيو كميدي هاي دالك كان أيو كميدي هاي سادة راد العلماء وحيكون فرسران والربانيون كو إلهي سبحانه وتعالى آيات القرآن كوحي لذان والذين يربون الصغار العلم قبل كبارهم إلهان علمك كيسة يري يركع يمرك ورا كتر بينا أن كيسة وين أنت لقارن صار العلماء كو فرسران كيف كمل ضروري مرة وحاكم إذا إسود الترلانتي عن صوت شيخني يعني أنت عن صوت المعنى وصمرني إنه الروح معناه وحوي شركي سويت ودونه ينولشي سأبني واحد دونه يسو iyo waxa weeyaan ama hurdaha noqoto ama cabitaan ha noqdo ama curitaan ha noqdo waxa jirku doonayo iyo waxa doon umadu ay doonayso diintu doonayso waa inaad isu dheelitirto oodan macnaha waxa weeye midna tafriid ku sameeynin ka kalena aadan ifraad ku sameeynin wasat waa inaad tahay yani waa inaad asal aqeedadii macnaha waxa u jeedaa xadiidkii Salman ee nabiga sallallahu alayhi wasallam uga marxaati kacay wali badanika alayka haqqan kan shirkaagu xaq kugu leeyahay hurdada hadaad ka tagto يعني شركة أن أودي سوى بربريس أودي كسوة عتوي وردة كلية هذا يا رئيس المهر موجود هنبت سنين هنا يا رئيس سنين ده تحاك كنا بشيء طيب وحمرك إن لتلمام مدن قالوا واحد شفتا يعني واحد ويا مدتك قاركي سلبيين ليرا باسم الواقعية يا واحد يكون نقدين سلبيين معناه هذا واحد ويا ما يلبو يسكتها جاية لا يحرك ساكنا وحنا إسوها يستائن وحكة تسوق قبني وحليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وجدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها وجدها هل كاسوكو تاغين تلاوة مقاضي وحق دين يدعوه مقاضي حق تعلم يحبر شو مقاضي عبادتي سوا ضعيف مركز هذا ورسيدا ما تكير بديسنا ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكلمة حق أريد بها الباطل علي بن أبي طالب سيدي وكلمة سيدة حق أوي لأنه هو قرآن لكن سيدة اللود للشدي هو باطل أوجدها روح أمركم يسود لتريه وإلا هدي أي دليل كوساكوها بونان لها إلهي سبحانه وتعالى معنى ملها تنين إلى هذا جهادا أو صبر موجدة أو دلالة إن صبر بأو ميشي ما دبا يعني معنى ملها صبر كوحا كيني أو جهاد كيني أو مصابرة كيني waxa lagu leeyahay macnaha waxa weeyaan wax dhaqaaji oo soco meesha awoodooda ku dhigtana waxa weeye halkaas ay waxay iimaanaysaa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha daliilku halkaas ku abooyin laakiin waan fadhiyaa la yukallifu Allahu nafsan waan la fadhiyaa waxa weeyaan arin haboon ma dad badan bayna ku badan tahay arintaas طيب waxa kamida asbaabtaasi daalka keena al-aqabat wal mu'awwiqat oo jeeda turunturooyinka jidka yaala jidkaas la hayo ee xagga Allah subhanahu wa ta'ala turunturooyinka yaala ayaa kamid maxay yeelay tariiqa ilaahi subhanahu wa ta'ala xaqiisa loo qaaday ama dacwaha noqdo ama cibaadaha noqdo ama cilmiha noqdo waa maliihun bil ashwaaq qodxa ka buux ma aha jid la qoray oo laami laga dhigay oo saad ugu macna waxa ugu ordayso aad hadafkii ugu gaarayso ma la qodxa ka buux وجده واجد قد حميرن أوي انت سوترون تراتان محل وضعي مركا إن أدوية لتقوضي لتصبر كي يأتكيسي أتكيو قد بله إذا عقبات كان كذا تجد كيالا ترون تروين كان كذا أتكيو قد بله وأنا قضية آدي القرآن كنت تركيز كوصارو إله سبحانه وتعالى وحوليه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون dadku waxay u maleynayaan aamanna inta iska yiraahdeen la iska daynay oo aan la imtixaanin miyuu maleynay saas ilaahay subhanahu wa ta'ala am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lam Allahu alladhina jahadu walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum alba'sa'u wad-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وجد رسول شبه هيركا قادس امتحانك iyo caqabaadka jidka yaal iyo boqolaha ka qodan yaa waxay gaarsiinaysaa rusushii heer ay yiraahdaan war ilaahay nasrigiisa la sheegay goormo way
وجد من حن بها حالة بقاعد حالتها من حن كقاعد ورسول الله سبحانه وتعالى هذا من الأمر كذي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا بكم ويعلم الصابرين يلا الله يدين كلا صارين ميادو ما الإنسان إن سيداس ونشناد أتكون بالإنسان أتسود حجرتان مايا إله سبحانه وتعالى ورشد إنتو إذن قليو يودن كلا صاري قارنا ولا الربي قارنا وحوي امتحان قالوا باسين مو كذا لكن سا إذنكو يسود حجرة إن أدو كذي قاعدان هكيا به مرنا وما دعيزو وعداد النقطة القرآن كقصص كيسة أنبياء قصص كودا إيوه دعوة ذي رسوش مرك الله فيري أمضى هذا آد بعد قدر من عنصر كاستجا عنصر كآد بعد قدر يمسا وانا السنة كونية ولي إلهي سبحانه وتعالى السنة ذا إيضا أما تشيد كاستجا أما عادة ذا رسوش حتى كما عبنين دعوة الرسل حتى إلهي كما عبنين سبحانه وتعالى إنه معناها وحوي أي عقبات هي الرفات هي الدل هي دعايد هي وحك الشيك وكذا إن عقبات انتاس يكبض إن الله داديو إلهي سبحانه وتعالى حتى رسوشك كما عبين وجدا حديثك بخاري وحا كون النبي صلى الله عليه وسلم خباب أيها وحوليه النبي قال نصه قال لي سوقه كعبدا هوس كذا معناها بركين كدنجيجا مركزا وحا نريد ومركي دباتته كو أتكاتي صحابة رسول رضوان الله عليه وعربتي آدو لبتي وكذا مركزا وحا يقول ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا بيقول رسولك إله إله ما تكلمنا ونوي ديس ود إله إنه بريدي وجد الرفاق الواحد لو عد كيسن كرمه ما إله إنه ولا واقد بقولنا مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من كان قبلكم يحفر في الأرض فيجعل فيه يعني وحوي أمته إذن كوري نين كم إذا أيال لكيني جري مركز أبنك اللو قد جري بالنبي صلى الله عليه وسلم markaasaa waxaa la dhulka inta la dhex geliyaa waxaa la keeni jiray minshaar baa la keeni jiray madaxa kale barkiisa inta laga saaraa laba qaybood loo kala goyn jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam arrintaasina diintiisa iyo mabdigiisa kama laabi jirin buu leeyahay in isaga laba qaybood loo kala gooyay mabdigiisa muusan kaga tanaasuli jirin oo jeeda madiyaga kamidana waa la keeni jiray markaasaa waxaa jirkiisa loogu fidhi jiray baashan la yiraahdo bir macna fidhin ka samaysan bir ka samaysan وجد واشان لبرة انتي سوق على بيجركيسي ولا فيه استكساء ugu macna waxa weey ay ugu fidhi jireen arintaasina mabdigiisa ma aysan ka hor istaagay jirin rasuulku sallallahu alayhi wasallam وجد arintan iyo diintan iyo mabda'an ilaahi waa dhameystiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam illa uu ka socdo ninka socda ee wax saarani sanca intuu ka taga xadaramood intuu ka gaaray intaas iska soconaya asagoo nin aan ilaahi ahayn ka cabsanin ama xoolihiisa dhurwaa mooyaane oo cid kale aan ka cabsanin inuu ilaahay ka cabsado iyo waraabaha duur joogta inuu ka cabsado mooyaane laakiin cid kale aan ka cabsanin heerkaasuu ilaahay diintiisa gaadhsiin doonaa walaakinakum tastacjiluuna buu rasuulku uri sallallahu alayhi wasallam laakiin waa degdegaysaan buri salawaatullahi wasalaamu calayh sooma muuqda degdegaasi maanta waa jali wey jiddan aad buu u muuqdaa walaakinakum tastacjiluun aad baan u degdegaynaa xaaladuu markii ilaahay ugu talagalay inay gaadho isagaa keenaya laakiin ha degdegsan marka caqabaadku aad bay u badan yihiin sidaa daraaddeed ducaadda qaarkood ba waxaa laga sheegaa waxay yidhaahdaan yani waxa weeye haddii aysan mucaawiqaadka lawlaa hadihi alcaqabaat walmucaawiqaat la shakakna fii ariiqina mawjeeda haddii aan inta turunturooyinka nagu dhacaya iyo xidhitaanka nagu dhacaya iyo garaacista dacaayadda nagu dhacaysa haddayna jiri lahayn jidkaanu hayno waanu ka shakin lahayn taloma kii saxdaa mise waa kii kaleeto ma garanaysa inay caqabaad aad ku aragto jidka oo lagugu rafaadiyo ayaa wuxuuba ka mid yahay calaamaadka ku tusinaya inuu jidku sax yahay laanna ambiyada ilaahay baa saa loo dhibay oo ducaadii muslixiinta baa saa loo dhibay oo nin aan la dhibin ma gaadhin hadafkii iyo ujeeddadii ilaahay subxaana wa tacaala uu diray marka aala yaasir rasuulku sal alay wasalam waa ka intuu u yimaado ku odhanaya sabran ya aala yaasir fa ina mawcidukum aljanna ma ujeeda iyagoo la cadaabayo o la ciqaabayo iska adkaysta jannada ayaad u dambayn doontaane qisaska ayaa aad macnaha waxa weye haddaad akrido qur-aanka ayaa arrintaa aad kaaga kaalmaynaya marka aad bay uga qayb qaadanayaan oo kaaga kaalmaynayaan waxayna kaaga qayb qaadanayaan inaad fahamto sunnada ilaahiga ee kawniga ah ee dacwooyinka dacawaadka iyo mabaadi'da taxakumaya ee aysan ka baxsan karin ayaad fahmi taa haddaad fahamtana waxa weeye daal ruuxaasoo kaleeto inuu ku yimaado aad bay biciid u tahay sunanka kawniga ninka fahamsan ujeeda ee dacawaadka ilahi subxana xataa dacawaadka baatilka ah xataa dacawaadka baatilka sunnadaasi lagama cabin jidkaa isaga waa inay maraan oo rafaadaan oy dagaalamaan
oo macnaha waxa weeye la dilo oo marka hore la xidhxidho marka kadibna dadaalkooda haddii qadarku uu waafaqo markaasi ay ku gaadhaan ujeeda wax badan baa marka isku khaldan waxaa ka mid ah asbaabta iyada sababka la yidhahdo alfardiya ruuxu inuu arrinta ku keliyeysa asbaabta cajiska iyo daalka keenta waxaa ka mid ah alfardiya wax la yidhahdo inaad ku keliyeysato oo wax ku garab taagan oo ku wehelyeelayaba aada garabkaaga ka weyn saan ogsoonahay diinta islaamku waa diin jamaaci ah wey waana diin amraysa in dadka muslimiinta ay isu yimaadaan oo isweheshadaan oo isgarabsadaan xataa waxa weye cibaadaadka waxaad arkaysaa salaadii jamaaci baa laga dhigay ujeeda salaadii jamaaci baa laga dhigay oo xajkii hal mar baa laga dhigay oo zakadii hal xilli bay dawladdu uruurinaysaa zakadii waxaasoo dhan waxay kutusinaysaa tajamuca iyo isu imaanshaha iyo waxda qabsiga ummaddu inuu daruuri yahay bal arrimaha caadigaa xataa rasuulku sal lla alay waslam inaan isugu nimaadno ayuu faray ujeeda waa ka odhanaya salawatullahi wasalaamu calayhi ijtamicuu calaa طacaamikum yubaarak lakum cuntada caadiga la cuno xataa isugu imaada bu rasulku uri sal lla alay slam waa laydin barakayn wadaaga ujeeda bedelkii kana gaaru cuni laha kana gaaru cuni intaad isku darsataan wadaaga bu uhi waa laydin barakayn markay u sheegteen saxaabadu ridwaanullahi calayhim inay dhergi laayihiin ujeeda ninkii dhergi waayahay nin kale waxa ku darsado way macneheed xataa arrimaha caadiga ah khayrku wuxuu ku jiraa in la isugu yimaado waa ka rasuulku odhanaya sal lla alay slam safartii oo kaleeto yani alraakibu shayطaan wاlraakibaani shayطaanaani wاhalaaثatu rakun waa ka odhanaya salawatullahi wasalaamu calayh ninka keligii wax saaran ee safartihi waa shayطaan buu hadday laba yihiinna waa shayaaiin bui iyaguna saddexduna waa jamaacadii la rabay buui salawatullahi wasalaamu calayh xataa safarta caadiga ee ruuxu iska safrayo inuu rufaqo kaxaysto oo dad uu kaxaystaay diintu waa amartay weliba waxa weye inay madax samaystaan bu rasulku sal la alay slam faray ayib arrimihii caadiga mar hadday sidaa tahay marka caadiga nolosha ahaa maxaad u malaynaysaa marka diintii hadaf dhan oo lala dagaalamayo oo rag ay doonayaan inay duniyaan adna aad doonayso inaad istaajiso shayطaan iyo acwaantiisii ay doonayaan inay kaa hoos bixiyaan oo ujeeda maxaad u malaynaysaa marka waa ka sii xag jiraa waa min baabi awlaa in macnaha laysu kaashado oo laysu garab istaago oo laysu weheshado saas daraaddeed ilahi subxana wa tacala waactasimuu bixabli illahi jamiican waa ka odhanay iskaashada oo xadhigga ilaahay qabsada oo ha kala tegina rasuulkuna sal la alay slam xadiis saxiix wuxuu ku yidhi calaykum biاljamaca wa iyaakum wاlfurqa faina ashayطaana maca alwaaxidi wa huwa min alاثnayni abcad man araada buxbuuxata aljannati falyalzam iljamaca yacni jamaacada iyo wada jirka muslimiinta laazima waxaana idinka digayaa inaad kala tagtaan ood iskhilaaftaan bu rasulku uri sal la alay wasalam maxaa yeelay shayطaanku mid halka ruux uu la jiraa hal ruux waa garab taagaya waa macnaha waa la jiraa labadana waa ka durugsan yahay ujeeda yani mar kastoo cadadkooda uu sii batana shaydaan waa kasii turkaya ninkii doonaya jannada dhexdeeda inuu galo jamaacada iyo wada jirka muslimiinta hal laazimu rasulku leeyahy sal la alay wasalam cali bn abi aalib isagana waxaa laga sheegaa kadaru ljamaacati khayru min safwi lmari min safwi lfardi jamaacada iyo wada jirka muslimiinta walow calowga ha ku jiro yani khaladaad iyo yani waxaa ku jireen laakiin isagaa wuxuu ka fiican yahay buu leeyahay inaad keligaa noqoto macnaha dhinacaad u baxdo ujeeda yani waxa wey inamaa yaakulu di'bu min alghanami alqaasiya wey haddaad fogaato durwaagu wuxuu la baxaa neefka adhiga siisa daaqaaya ee adhiga ka yara durka kaasuu la baxaa shaydaanu baa saa kula bixi jamaacada muslimiinta iyo wada jirkooda markaynaad la jirtahay waa daruuri waa arrin laga maarmaana wey maxaan ula jeedaa marka jamacada cabdullahi mubarak sayna waxaa laga sheegaa lawla aljamaacatu ma kaanat lana subulun walakana adcafuna nahdan liaqwana haddaysan wada jirka muslimiinta iyo iskaashigooda iyo idaaradooda iyo maamulkooda hadduusan jiri lahayn shidad maanaan heleen buuri kaanaga tabarta daranna waxaa dhici lahaa oo xoogi lahaa ka xooga badan ujeeda adduunku jamaacada iyo wada jirkaasi ku hagaagsan jamaacada waxaan ula jeednaa ulama jeedno jamaacaadka maanta jira sida dad fara badan ay u daliishadaan nusuusta iyada waxaan ula jeednaa jamaacatu lmuslimiin jamaacatu ahli waa nin kastoo haysta manhajkii saxaabada iyo rasuulka sal alla alay wasalam ujeeda waxaa soo gudagelaya jamaacaadka maanta jira kii manhajkii rasuulka ku sugan iyo kii saxaabada iyo salafka waxay ka mid yihiin jamaacaadkaas soo isgaleen laakiin iyada keligeed maaha waa ka ballaaran yahay qaacidadu waa ka ballaaran tahay juz ka mida iyada noqonaysa dad baa waxay u qaateen jamaacadooda keliyata inay tahay uun jamaacadii muslimiinta waana khaldameen
جماعة المسلمين توقف بلارة وحلو جدا أول جيركا مسلمين مبدأ أغانين كرستو كوكوا فصل أولالك كاشو وجدا وهي سنة وحيكوكو بحنيسا إن معنى وحوي آدم دارين أو دار كوكو يراد أي يقول بحنيسا يعني الصومالي حتى مركز سفرتها أو تعطوا أما يا حنبار أما أنكو حنباري وحلي لذا جرس أما يا حنبار أما أنكو حنباري واحد شو واحد أصغر تيجي شيء جري معناه إنه وحوي أما إيش شيكي أما أنكو شيكي لو أنا أروح حتى يجيبك ولا هيان ويسوي الشنية وجدا سيد دبير بين يجيبك كوكوينيا هذه لكنه كوكل يستجد كوكل يستجد كلي يكون نقطه سيدا كل بدين أو بيرين يسوي سيدا كل بدين كلي يسوي كلي دونا كلو وجدا كل مرة بالله مثل كذا بالله إيمان يا ذا كده نبى معناه قوة هذه دعسة ودالسة وضروري مرة آد بيمهم أطهي ضد كمسلمين تينيس كاشلا وحكم إذا أسباب ككنيسة عجز ككنيسة يدال ككنيسة عدم الإشعار بالتحدي يعني أودا كهر إيمان مسلمين تمانتا هي أعداد وحا إيدونيان هي خطط كوضا إلى كسيحة دون وحبا درين سنين قال هذا هي وحي كتم عسين إسلامك هي بربر كي كلار رمان هي وحي كاد دونيان إنا درين سنين تقبع أن تلقوا سنين أما مهم بأيسان قرآن إلهي سبحانه وتعالى آيات القرآن ونقد كي قال هذا هي سيدا مرنا بأيسان خير نولر ربين وفربضين ودوا لو تكفرون كما كفروا إلهي سبحانه وتعالى ورنه إناد قالوا دام بيتشعلانيان سيئقوا قالوا بين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم محل ولا كذا آيات كاسوين وحل دونها إنه روح مسلم كأن يكون على حذر دائم إنه دكتوني دي سقاط دكتوني هذا وإلى القاتل على وقاقة دكتوني هذا كقاتل ترتيبات كي استراتيجيات كيسية ماشو كوسو مريا درشدو كاسو قليه كل قال وحوي وإلى يكون دراسي سنتها وتكون لك شنتها إلهي سبحانه وتعالى وعرنيا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وحيث إعلان لها إن الآلات إن يهبكين إنتاد يرها المانتان قد معناها إسكيرا دكتان سكدا إنت إذن كوي مادان هل ما عكت إذن مريم ساسة إعلان لها يبقى رنيا سبحانه وتعالى حتى الروح مركز هالمامو استيكتو وعدوك يتحدق يسؤوسا لسعن الأعداد وحويان دكتوني ديسي iyo fojignaantiisii ayaa damaysa waana caadi arrintaas waa caadi waxaad arkaysaa dawladdu markay cadow leedahay oo xuduudeeda ay khatar ka dareento ciidamada dhan istaanbay baa la gelinaya wajada ciidamada dhan waa la diyaar garaynaya dawladda dhan baa diyaar garoobaysa qitaaceedkeeda dhan baa diyaar garoobaya laakiin maalinta ka waran ay jiiraankeeda iyo daraskeeda ay macnaha waxa u aragto inaysan wax khatara kaga soo soconin waa iska nasanaysa ciidamada xataa waxa weeye maaragtay waa la iska fasaxayaa ومارتي راحة لو فرين عادي وكذا هذه اللفظة كل حاجة هذا عوض درين تاي إنه توكوسو قلي وشنقدي سعد ملاك كما مغلس ورتم الذي وكذا تحدي بعد درين تاي عادو بعد درين تاي سيدا هذا يتهاينا مسي حنيس ورتم الذي وين العوض واردك كاش وكذا سادرات بوحي لنا ويعرفتكم معها لو ترك القطع نام بيدينا ييلانا بالكن إذا حيتنا ليلا هبين كي ودك دواء وسمعنا ويق هبين كنا كويس هذه اللي سكتين لها ويسمحن لها يبينا العرب وكذا واحد كل بالله كعايزين لبوا يصير له دواقس ومعناه واحد وحب أرجع هنا وكذا أرجع حي الدرين بيخطها سيدا درادة روح عطوسا درين سنين با جراحات كي يضاوع عالم الإسلامي ما أنت كوي هلا هي أعداد سيقول تشطي هي أنت ديك كدادنية iyo inta la rafaadiyay iyo agoonta sida loo galay iyo araamisha iyo rafaadkooda haduusan la soconin ama u arkaba shay iska taalawiyaad oo maanta in laga sheekeeyo aan muhiim ahayn waxa weeyaan wuu seexani maxaa yeele wax khatar oo kusoo foodlay buusan dareensanayn inuu ruuxu marka arrintaa dareemo waa daruuri aad bay muhiim u tahay maxaa yeele waxay ka qayb qaadanaysaa inuu foojignaado oo mar walba dadaal uu aad iyo aad uu ku socdo waxa uu leeyahay abu ayuub lilansaari aayadda awala tulquu bihaydikum ila tahluka waxay kusoo degtay buu leeyahay annaga nagu soo degtay buuhi ansaar haddaan nahay markii ilaahay islaamka uu guuleeyey oo islaamka atbaacdiisa iyo mu'ayidiintiisa ay bateen yaa waxaan nidhi bay dhaheen war muddo dheer baynu inagu soo dagaalamayne reerihii iyo xoolihii iyo xaasaskiina waa inaga lumeen haddii aan iska yara nasanno ka warramo bal reerihii iyo soo yara hagaajino markaasuu ilahi subxana watacala ayadan kusoo dejiyey ujeeda waana la canaantay buui marka naftiina halaag ha ku ridina
halaaga lagu ridayo muxuu yahay nasashada ay nasanayaan waxaa imaanaysa inuu cadowgoodii soo xoogaysto hadduu soo xoogaystana guryahooda in loogu yimaadaa imaanaysa halaag soomaysan isku rid markay gacan sarreeyeen kadib ayaa waxay noqdeen dad marka waxa weye gacan hoose ku jira waxaa ka mid oo ugu dambeeya sababka ugu dambeeya uu yahay in macnaha waxa weeye tarbiyadu ay daciif tahay tarbiyada macnaha jiilka hawshan qabanaya ama ummadda qabanaysa ama qaacidada tarbiyadeedu inay daciif tahay saas daraaddeed baa waxaad dareemaysaa ahmiyadda rasuulka sal alla alay wasalam markii uu maka joogay muddo dheer ilaahi subxaana wa tacaala maka maxaa rasuulku ugu hayay salawatullahi wasalaamu caleyh oon mujtamac islaamiya uusan u samaysmin yani saxaabada la tarbiyeynayay waa la rafaadiyey qaar baa la dilay qaar baa macnaha la ciqaabay qaar baa la adoonsaday qaar baa waddamadoodii laga cedhiyey qaar baa xoolahoodii haweenkooda lagala hadhay kullu dalika maxaa loola jeeda ilahi subxana wa tacala waa ka argoosan karay dadku ilaahi subxaana wa tacaala tarbiyeynaya waa la laylaya hadda waxaa la rabaa ruuxa halkaa ka soo baxay inuu noqdo umma ujeeda ruux ummad ah oo hayin ah oo shay kasta u layliyan oo xagga ilaahay ka yimaada subxaana wa tacaala saas sidii la rabayna waa ku soo baxeen qaacidadii ugu horreysay ee rasuulku abaabulo salawatullahi wasalaamu caleyh ee diintana ay ku istaagtay waa tii rubcu qarnin adduunka dhan ku furatay wey waana binyadii asaasiyaadkii tarbiyadooda ay kusoo istaagtay be halkaasaad marka ka damaysa waxaa marka muuqata maanta dacfi aada u fara badan ayaa saaxada ka muuqata oo la dareemi karo haweenkii hadday tahay raggii hadday tahay shabaabkii hadday tahay dalabulcilmigii hadday tahay dalabadii hadday tahay ma ujeeda cilmigii hadduu yahay kulli waxaad dareemaysaa saaxada dacfi muuqda ayaa jira leanna waxa weeye iltizaamkii waa jira laakin waa iltizaam fiihi dakan qiiqi baa ku dhex jira qiiq baa ku dhex jira waxaa meesha ka muuqata amaano daro qalla maa tajid boqolkiiba in yar baad helaysaa nin wadaad oo amiin ah oo wixii loo dhiba sidii looga soo baxay khaasatan hadduu wuxuu wax dadweyne yahay hadduu wuxuu wax dadweyne yahay ruuxu ceebtiisa inuu qirto waa fiican tahay raxima allahu yani imra'an carafa qadra nafsihi xoolo dadweyne waa intay naga soo gaadhayaan ujeeda qiilal fara badan baan u helaynaa waalmu'allafati quluubuhum kolaan idhaahni kolaan idhahno walcaamiliina calayha kuwii zakada ka shaqaynaya ilahay fasxa baynu nahay ujeeda meelo badan baan la maraynaa waxaa meesha isaguna ku jiro iyadana ka mid a tarbiya la-aanta fitanku markay yimaadaan oo ina soo waajahaan qalla man yaslam cidda nabadgelaysaa waa yar tahay oo fitankaa ka nabadgelaysa waxaad arkaysaa qabiil baa saaxadii ku furmaya oo ummaddii ku imaanaya markaasuu shabaabkii saaxada iyo shuyuukhdiisi intuu dhex galo yuu mid ka raaci ma jiro wuu kala fiifiijini maxay ku dhacday waa dacfu tarbiya tarbiyadii asaasiyaadkii markii hore lagu soo istaagay baa daciif ah ruuxu waa khaldami karaa khaladkuna mar saxwada waa ku dhici karaa laakiin ka noqoshaa loo baahanya inaad kusii madax adaygta ma ah weliba khaasatan magacyaal loo sii bixbixiyo ninku waxba laga yaabaa qoyskiisa arrimihiisa intuu ka shaqeeyo dulmiga uu ku garab istaago oo dadka kale walaalihiina qaabka ugu cadhoodo haddana u isu arka nin muxiq oo xaq isagii ku taagan maayo ujeeda wadaadku isagaa daliilkiina isu haya qiilkiina isagaa isu haya yani soomaalidu waxay dhihi jireen ilaahu xaynteeda xero wadaad hagelinin bay dhahaan ujeeda xero wadaad hagelinin bay dhahaan maxaa yeelay qiil uu ku banaystana wuu haystaaba dheen mindi uu ku qashana isagaas ujeeda waa mahmaah runtii waxa weeye wadcigii wadaadada marka la fiiriyo iyo inaga lafteenna qaabka qayb badan ay u dhaqmayaan marka la fiiriyo saxiixa wey ujeeda walow kaana mubaalaqba ha ahaato marka dacfi fara badan baa marka saxwada ku jira dacfiga waxaa ka mid a dhismaha hore waa daciif waxaa ka mid a dadkii iyo saxwadii laguma tarbiyaynin inay mubaadaraad la yimaadaan ruuxa in amar lasoo siiyo takaaliif u timaado mooyaane war inuu mubaadaraad la yimaado oo xuluul la yimaado oo isaga inuu wax saxa isku dayahay lanaguma tarbiyayn kuma tarbiyaysin ujeeda takaaliif un kor ka yimaado sidaa same in lagu yidhahdo ama halkaa lagu diro unbaa sugi waxaa ka mid a yani waxa weeye kalsoonida aan nafteenna ku qabno daciif haddaad tilaabo qaado amaad fashilantaa baa nin walba isleeyahy haddii diiniya shayga aad ugu kalsoonaatay inuu sax u yahay marka hore taasaa la rabaayo ku tilaabsigiisa waxaa loo baahanya cabsi inuusan kaa gelin hadduu fashilmo waxa weeyaan adiga waxa lagu baray waa inaad qabato waxaa ka mid a yani inaan laysku adadkeeyo nafta layskaga qaado muxaasabada ruux baa khalad galay markaasaa dunuubtiisiiy wuxuu galay baa la waaweyneynaya ujeeda waa la waaweyneynaya
عنفي أو نحريس دراء أو انشلاع كتير مالدوية اللي سوء الله حسابي موجودة يعني واحد كم وحيالها كتوسية يعني عنان تفرها بدن إيه dadkii oon jawigii iyo wixii wuxuu ku dhacay iyo suu ku dhacay aan la muraacaynaynin iyo waxaasoo waxay ka mid tahay tarbiya la'aanta ka mid tahay dacfiga tarbiyada ku jiray ka mid tahay rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi akhtaadu way dhici jirtay qaabku u daaweyn jiray waa inaan daraasayno qaabkee u daaweyn jiray salawaatullahi wasalaamu calayhi ninkii masaajid ku kaajay u kaadiyay buuri nabigu sal alla alay wasalam kaayada ha ku goynina ha dhamaysto masaajidka dhexdiisu kaayadii ku dhamaysto ujeeda markaas salawaatullahi wasalaamu calayhi u yeedhay markaas uu sheegay markaas yidhi weligay macallin ka wanaagsan ma aragta ilaa uu heeray u gaadhay oo yidhi ilaahu aniya maxamed mooye cid kale waa u naxariisan oo jeeda yani siduu ugu bogay rasuulka sal alla alay wasalam arrintiisa siduu xalliyey maanta marka waa la khaldami karaa jamaaca way khaldami kartaa oo jeeda mujtamacna waa khaldami karaa kooxna waa khaldami kartaa fardina waa khaldami karaa laakiin qasab waxaa inay marka hore khaladka iyagu ka noqdaan dadka macnaha khaladkooda dareemayana inay u naseexeeyaan qaabkii nebigu sal alla alay wasalam u naseexeeyeyna waa in naseexada loo baro cunfiga iyo adayga iyo canaanta faraha badan iyo dhaleecaynta manaabirta la iska dhaleeceeyahay waxa weeyaan inay mafsado iyo kala fogaansho keento mooyaane wanaag ma keenayso waxaa u dambeeya insha allahu tacaala waktiga haya waxaa u dambeeya oo ka mida tusaalayaasha amraadulquluubka quluubta oo jiran xasadkii oo kaleeto malihii xunka ah oo kaleeto waa ka ugu daran wey malaha xunka ah yani ruux baa ficil ku dhacaya ama hadal buu odhanaya hadalkiisa intaad taxliiliso yaa dhanka xun un aduu ka raaxaysa hadal waa markii kolba dhankii loo jiido wey macno kastuu yeelan kara sharciguna asal waxaa ah ruuxa maadaama asalkiisu uu muslim yahay hadalkiisa inaad ku xambaarto macnaha ugu wanaagsan xataa daahirhaan hadday kaaga muuqato inuu xumaa yahay macno wanaagsan la raadso intaad u helayso saasaa sharcigu qabaa laakiin innaga waxa weeye meelba meeshay ka xun tahay ayaan salka u saarayna tarbiya xumaday ka mid tahay waxaa ka mid tahay alxisbiya watacasub in kooxaha iyo ururada loo tacasubo oo ninba tiisa un ku dhago oo jeeda isoomaraa maligii galaa yidhaah halkaa un inuu istaago oo uu u arko xaqa kulligii inuu tiisaa ku kooban yahay wax alla wixii ka soo haro dhan inuu baatil yahay asagoon u noqonin usuushii kitaabka iyo sunnada kuwaasaa ilan dadka kala bixiye waxay ka mid tahay iyaduna dacfiga ku jira saxwada ku jira uu ka mid yahay alwalaa walbaraa yaa hiil iyo hoo iska leh muslim oo dhan baa leh siday macsiyada ugu kala dhow yihiin ayaa walahaagu uga fogaanaya ninba ninkuu ilaahay uga dhow yahay ama ha ahaado jamaacadaada ama yuusan ahaanin manhajkiisuna uga toosan yahay ayaa loo baahanya inaad walahaaga siiso midba midkuu diinta ilahay uga sii fog yahay inaad barahaaga aad siiso ood macnaha ka beri noqoto asalku waa midkaas laakiin waxa weeye halkaa inaad ku dhegto kii kalena halkaa ku dhago bal waxa weeyaan akhtaada ay jamaacaadku gelayaan ama madaxdoodu ay gelayso ama ururkuba gelayo inaan tabriirin maayo waxay ka mid tahay noociyaadka tacasubku tusanay ka mid tahay yani waxaad arkaysaa khalad bay ururka madaxdiisii baa gelaya ama nin ka midaa gelaya yani jumhuurtii waa u sacab garaacaysa nuu kama odhan karti haddaad radidana ama diiniyan meeshuu khalad ka yahay aada muujisana waylag oo jeeda maalintaasaa lagula wada collaytamaya marka waxay ka mid tahay dacfiga saaxada ku jira u ka mid yahay saxwada dacfiga ku jira iyo tarbiyada xumaanta ayay ka mid tahay arrimahaas oo idil waxaa insha allahu tacaala ugu dambeeya in aad garan weydo cudurkii futuurka ahaa iyo daalkii hadduu kugu dhaco daawadiisii aada haleeli weydo waa ka ugu dambeeya wey yani waxa weeye alfutuur fii cilaaji alfutuur daalkii daawadiisiiba inaad ka daasho ruuxa hadduu cudur kugu dhaco oo cudurkii markuu ku qabtaba daawadiisii iyo isbitaalkii aada aado inaad ka bogsooto rajo weyn baa laga qabaa ilahi subxaana watacala hadduu ku daaweeyo laakiin haddaad tashaahusha ka waran oo tidhahda berri baad tegi doontaa waad maaragtay bal waad isdaaweyn doontaa ood isu dayso wuu kugu weynaani markuu kugu weynaadana waa adagtaa sidaas isaga goyso marka waxa ugu xun inaad haleeli weydo horta inaad garan weydo inaad daalanto futuurkii cudurkii kugu dhacay haddaad haleeshana waxaa xun inaad daawadiisii garan weydo iyo qaabkaad isaga daaweyn lahayd ama aad kaba caajiso ood ka daasho intaas insha allahu tacaala